Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada walaaleyna qiimiga badan oo channelkeena Zack Multimedia. Muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay walaalaha ka mid ah ayaa wuxuu iga soo yar codsaday sida loo sameeyo rectangle animation. Run ahaantii intaan gudagalin cashirkan waxaan rabaa inaan wax aan idin ogeysiyo. Runtii haddii aad tahay qof sameeya motioniska ama dhaqaaqa ama animationiska sida loo yaqaano, mar walba waxaad u baahan tahay fikir. Laakiin inta badan markaad aragto shay la yara sameeyay animation ku jiro, marka ugu horeyso waa in ay kuugu dhalataa sidee ayaa waxaan loo sameeyay, aniga ma samayn karaa. Run ahaantii markaad isku yara daydo jawaabta saxda markaasi way kuu soo bixi doontaa. Inta badan rectangle animationiska waxaa loo adeegsadaa muuqaalada square-ka ah, waayo muuqaalada balacoodu uu weyn yahay laguma samayn karo kumana nuurayo. Waxaan inta badan square-kaasi caan ku ah dhanka iyo Facebook-ga. YouTube-ka muuqaal square waa la soo gelin karaa oo cabirkiisa uu yahay 1080 width iyo height-giisa waa 1080. Macnaha markaasi waxaa kuu samaysmayo cabir square ah. Runtii sidaad hadeertaan aad u jeedo rectangle animationska lagu yara sheegayo waa kuwan hadeertaan kore igaaga soo yara baxeen. Sidaas ayay animation u sameynayaan. Run ahaantii qofkii arko wuxuu leeyahay kani xoogaa yar wuu yara adag yahay samayntiisa. Xaqiiqatan ma adko, kaliya waxay u baahan tahay farsamo aad iyo aad u fudud iyo maskaxdaada inaad adigu kaashato. Yaan war badan idinku daalinay kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Run ahaantii sidaan hore aan u soo sheegnay animationiska waxaa aad iyo aad ugu fiican dhanka iyo Adobe After Effects. Runtii waa lagu samayn karaa dhankan iyo Adobe Premiere Pro-ga. Walaalka wuxuu iga soo yar codsaday sida loogu sameeyo Adobe Premiere Pro-ga. Waxaan ku samayn doonaa insha Allah animationskani Adobe Premiere Pro-ga. Marka kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Ugu hore markaan computerka aan imaano, marka ugu horeyso waxaad doonaysaa inaad sameyso rectangle animation. Ugu hore marka waxaad u baahan tahay inaad soo yara kiciso Adobe Premiere Pro-gaaga. Hadba noocoo doona ha ahaadee. Ugu hore marka meeshan sidaad u jeedo interface-ka kaliya ayuu ku yara tusinayaa. Marka waxaan rabnaa inaan sameysano sequence oo square ah ayaan doonaynaa inaan sameysano. Ugu hore marka waxaan leenahay new item-kaani ayaan xulanaynaa. Kadibna waxaan kasii xulanaynaa new sequence. Ama sequence xag waad ka dhigi kartaa, laakiin inta badan inta ayaa yara fudud. Marka waxaan leenahay sequence. Markaan sequence aan ka xulano kadib adiga waxaad ka xulanaysaa digital SLR. Markaas frame-ka aad rabto inaad u baxsato ayaad meeshan ka dooranaysaa. Aniga marka waxaan doonaynaa 25 frame per second. Kadib marka waxaan leenahay settings. Markaan settingska aan ka xulano sida u jeedo meeshani meeshan inta waxaan gelinayaa 100 adiga 1080. Horizontalka verticalka sidoo kale asaga waxaan gelinaynaa 1080. Kadib marka waxaan leenahay okay. Mar alaale markaan okay aan dhahno sidaad ugu jeedo meeshan waxaan ogala sameynayaa sequence-gii aan doonaynay. Marka video walba aan soo gelino hadeertaan qaabkan square-ka oo kale ayuu noqonayaa. Marka ugu hore marka waxaan sameynaynaa waxay tahay rectangle-ka ayaan sameynaynaa. Marka intee ayaan ka yar helaynaa rectangle-ka. Kaliya waxaad leedahay file, kadib waxaad kasii xulanaysaa new, kadib waxaad leedahay legacy title. Kadib marka meeshan sidaad ugu jeedo wuxuu ku leeyahay title 1 ama magaca doonto waad u baxsan kartaa. Aniga hadeertaan magac uma bixinayno, waxaan leenahay okay. Mar alaale markaan okay aan dhahno kadib wuxuu noo soo yara furayaa new window ama kadib marka wuxuu noo soo bixinayaa interface-kaani cusub. Kaliya marka waxaan ka dooranaynaa sida meeshan aad ugu jeedo dhanka iyo bidixda. Kani waa rectangle toolka, kadibna kani waxaa waaye rounding. Marka rounding-gaana ayaan rabnaa, asaga ayaan dooranaynaa. Kadib shift ayaan keyboard-keena ka qabanaynaa si cabir isla ega oo inoogu sameeyo. Sidaad ugu jeedo anaga marka waxaan rabnay waxay tahay lines aad u yar ayaan doonaynay inaan sameysano. Laakiin meeshan waxaa ka yara sameysmay sidaad ugu jeedo hadeertaani mid aad iyo aad u weyn ayuu ka sameysmay. Marka tani waa xalinaynaa dhib malahan. Kaliya marka kani ayaad waxaad sameynaysaa qaybta inta ayaad u soo jiidaysaa boxkan inta si meeshan wax badan ay kaaga soo baxdo. Hadeerta marka anaga ma rabno colorka gudaha ku jiro oo fill-ka ah ma rabno. Waxaan adeegsan doonaa waxay tahay color oo stroke ah. Marka fill-kaani ayaan jeega ka qaadaynaa. Kadib stroke-ga qaybtiisa waxaan ka dooranaynaa inner stroke. Kadib waxaan leenahay add. Meeshan sidaad ugu jeedo colorka hadeertan aan ka dooranayno stroke hadeertan aan dalbanay waa black. Marka waxaan leenahay waxaad noogu yara dhigtaa adiga ani color aad rabto oo adiga vibrate-ka waan dooran kartaa. Aniga marka color-kaani ayaan dooranaynaa. Marka hadda color-kaani aan doorano sida u jeedo
roundiga sida aan ka rabnay ama wareega sida aan ka rabnay ilaa iyo hadeertaan ma ahan marka meeshan roundiga sizekiisa ayaan bedelaynaa marka waa 37 marka waxaan ka yareeynaa 5 sidoo kale meeshan sizeka oo innerkana asagana waxaan ka dhigaynaa waa 10 5 ayaan ka dhigaynaa markaas hadeertaan wuxuu noqonayaa mid aad iyo aad u yar ayuu noqonayaa kaliya marka hadeertaan windowgan ayaan soo kansalaynaa kadibna midka hadeertaan noola sameeyey waa kan kaliya marka hadeertaan waxaan sameynaynaa qaybta iyo timelineka ayaan keensanaynaa hadeertaan marka sidaad ugu jeedo roundigani ama rectangle-kan aan sameysanay sida hore muuqaalka tusaalaha aan idinkugu soo tusiyey qaybtan intan way ka yara jarneed qaybtan intan way ka yara jarneed marka qaybtan intan ma aysan soo muuqanaynin marka sidee ayaa lagu sameynayaa kaliya waxaad tegaysaa qaybta iyo effecti kadibna qaybtan inta ayaa waxaad ku qoraysaa effect lagu magacaabo crop kaasi ayaa wuxuu ka caawinayaa in geesaha aad rabto inaad ku kala jarto kaliya markaa deertaan waxaan leenahay effectigan cropka ayaa waxaan keenaynaa qaybta iyo layerka ayaan kusoo yurduldeynayna markaan kusoo yurduldeeno kadib hadeertaan ilaa iyo hadeertaan wax saameyn ah noogu muuqdo ma jirto kaliya marka waxaan tegaynaa qaybta iyo effecti control mar walba aad effecti soo geliso saameynta inta ayaad ka kontrooleysaa kadibna qaybtoos ayaad usoo wadaysaa marka qaybtan iyo cropka ayaa waxaad leedahay marka ugu horeyso liftiga ayaad kasoo jaraysaa waxaad leedahay 16 ayaad kasoo yara baxaysaa sida ujeedo qaybtan inta rectangle waa laga soo yara jaray sidoo kale marka qaybtan iyo buttonka ayadana sidoo kale waxaad leedahay 20 kasoo yara bax marka hadeertan sida ujeedo rectangle-ka markiis hore wuxuu ahay sida tan kadib markaan effectiga cropka aan gelinay sida tan ayuu noqday sidoo kale marka hadeertan markaa sidan aan u jarnay waxaa naga maqan geedaha yariiska inta aan saari lahayn kaliya marka waxaan ku laabanaynaa qaybta file new legacy title kadibna okay ayaan leenahay hadaa marka waxaan dooranay roundiga kadib hadda waxaan dooranaynaa ellipse tool maadaama aan rabno mid circle ah kaliya waxaad qabataa shifty xoogaa sidaas sidoo kale marka mar walba aad shape cusub aad kasoo inta soo geliso inta ayaad ka sasixi kartaa marka waxaan leenahay widthka waxaan u rabnaa midkan yar 35 sidoo kale haygiis waxaan u rabnaa 35 kalarka aan ka rabno marka waa kalar guduud maadaama oo tusaalaha sidaas uu ku saabsanay marka ani kalar aad rabto waa dooran kartaa kaliya marka midkaana ayaa waxaa la sameeyaa midkaan kale ayaan la sameeyaa adiga justy waa enough kaliya markaa deertaan waxaan sameynaynaa midkaani guduudka ayaan koobi ka qaadanaynaa marka waxaan leenahay aalti anagoo hayno waan soo yara jiidayna waxaan keenaynaa midkaan kale ayaan keenaynaa adiga kan sidaasi uu ku yara saxan yahay kadibna cancel aan iska soo dhahno labada xab markaas sidaas u sameynay kaliya deertaan waxaan soo keenaynaa qaybta sare rectangle-ka qaybtii sare ayaan soo saaraynaa marka sida hadeertaan u jeedo labadii button sidan iyo sidan ayay kusoo kala fooleen marka sida u jeedo marka mid walba hadda goonigiisa ayuu u taagan yahay marka waxaan ka yara dhigaynaa group marka sidee ayaan group ugu dhigaynaa kaliya marka waxaan leenahay labada xaba ayaan select saaranaynaa kadib marka waxaan leenahay right click kadibna nested micnaheedu waxa weeyaan in faylashaada in hal meel lagu yara shubo marka waxaan leenahay midkaani maadaama uu yahay midka topka u yahay waxaan leenahay top marka sidee ayaan u sameyn karnaa aan cropping fudud aan u gelin karnaa sababtay tahay hadeertaan haddaan playheadkaan si kastaan yeelno wax animationa sheygan ma sameynayo ugu marka top rectangle-kani ayaan duplicate ku sameynayna waan koobi gareynaynaa aalta anagoo hayna ayaan qaybta sare usii yara jiidaynaa marka midkaani hoosena yaala qaybtan inta ayaan usoo bixinaynaa marka ugu horeyso waxaan ka yara shaqeynaynaa midka sare marka ugu horeyso marka waxaan u baahannahay effecti inaan tagno kadibna cropkaasi aan kusoo yarduldeeno midka sare saaran markaa midka sare aan sidaan u sameyno kaliya hadeertan waxaan kasii yartegaynaa qaybta iyo effecti control markaan effecti control aan tagno kaliya markaa hadeertan waxaan u baahannahay rightkan waxaan ka dhigaynaa 87 markaan 87 aan ka dhigno kadib buttonkani sidoo kale asagana waxaan ka dhigaynaa 93 markaan 93 aan ka dhigno marka ugu horeyso keyframe-ka waxaan daaraynaa right-ka kadibna sababta deertaan 87 aan u geliyo waxay tahay in uu drawing uu sidaan uu usoo sameeyo marka xoogaar ayaan playheadka kasoo yara dhaqaaqayaa kadibna midkaani gadaal ayaan usoo celinayaa adiga
midkaan adiga right-ka midkaan ilaa iyo 2 ha ku joogsado camal sababtay tahay hadeertaan buttonka waxaan u keenay waxay tahay 93 waxaan u keenay waxay tahay midkaan inuu inta ku ekaado ayaan rabaa midkaan kale hadeertaan inta qaybta hoose yaala ayaa waxaan doonayaa inuu qaybta dhamaystiri lahayd inuu noqdo asaga marka hore waxaan soo gelinaynaa effectiga ayaan tagaynaa cropkaas ay waxaan kusoo yurduldeynayna rectangle-kii labaad ayaan kusoo yurduldeynayna markaan rectangle-ka qaybta hoose aan sidaas aan ugu soo yurduldeyno kadib marka sidee ayuu marka qaybtan kale oo u dhamaystiri karaa ugu hore marka asaga ayaan dooranaynaa rectangle-ka qaybta hoose midka yaala kadib waxaan kasii yara tagaynaa effecti control markaan effecti control aan tagno kaliya qaybta buttonka ayaan waxaan ka dhigaynaa 93 markaan 93 aan ka dhigno kadib qaybta buttonka ayaan keyframe-kiisa daaraynaa kadibna adiga play heat-ka ayaan xoogaa yar soo yara baxaynaa kadibna xoogaa yar drawing-ka noo yara sameey ayaan leenahay ilaa iyo meeshuu kaga egyahay adiga ilaa iyo 15 ilaa iyo 12 13 waa enough markaa deertaan sidaa ugu jeedo xoogaa yar drawing-kani slow motion ayaa ku jiro marka slow motion-kaasi aad ugu bixiso midkaan saraley ayaa taabanaysaa labada keyframe ayaa isku dhaweyn marka labada keyframe ayaad isku soo dhaweynaysaa marka hadda drawing-ka uu sameynaya xoogaa yar sidii hore wuu kusoo isbiidsanaaday kadib marka midkaan kale ayaad usoo dhaweynaysaa oo play heat-ka meesha keyframe-ka uu ku dhammaanaya ayaad geynaysaa hadda dartaan sidaa ujeedo meeshaas yar hakad ayuu ka yargalayaa marka hakadkaasi inaad ka bixiso haddii aad rabto kaliya zoomin ayaad waxaad soo leedahay timeline-ka xoogaa yar meesha uu ku yara joogsanayo kan waa intaasi marka intaan yar ayaa hakadka keenayso xoogaa yar asagana sii yargeey labadiisa keyframe isku soo yara dhaweey waa midka buttonka labadiisa keyframe isku soo yara dhaweey hadeertaan xoogaa yar kala fogey hadeertaan sidaa ujeedo wax hakad ah uu sameynayo ma jirto sidaas ayuu usoo soconayaa waxay kaaga baahan tahay si xoogaa yar aan lagu yara dareemin labada keyframe isku baalansi gareey marka hadeertaan faylkani nested aan ka dhigno layeradan marka right click ayaan leenahay labadooda ayaa select saaranaysaa kadibna waxaan leenahay nested kadib kan waxaan iskaga bixisanaynaa adiga waxaan leenahay top animation kadib waxaan leenahay okay marka midka kale qaybta hoosana asagana sidaas oo kale ayaad u yara sameynaysaa wax sidaas u dhib badan ma ahan kale hadaa midkan aad fahantay midka kalena sidaan oo kale ayaad u sameynaysaa marka aan ku tusiyo asagana xoogar midkan intaan iga yargeey marka stepskani aad iyo aad ayaan u buubsiinayaa waa intii hadaa aan kale aan soo sameynay laakiin wax yar ayaa kala duwan yihiin marka midka deertan aan sameyn waa kan qaybta timeline-ka ayaan keenaynaa kadib koraabkii ayaan gelinaynaa koraabka marka aad geliso marka ugu horeyso koraabkii daati oo kale sidaad wax u soo yara seexaysa ma ahan sababtoo tahay midka daati qaybta sare ayaan koraab ka soo gelgelinay laakiin midkaana qaybta hoose waay marka waxaan tagaynaa qaybta effecti control ugu hore marka waxaan sameynayna waxay tahay qaybta toobka ayaan 16 ka soo yara degaynaa kadib qaybta iyo right-ka asagana waxaan ka soo yara baxaynaa adiga 40 cabir sidaan ayuu sameysmayaa sidaad ugu jeedo kan hadhow dhib malaan qaybta sare ayaan iska keensan doonaa marka hadeertaan waxaa u dhiman qaybta iyo botonada asagana waan fududeynaynaa qaybta sare ayaan kasoo sara saaraynaa marka waan hal mar si uu iskula bilaawdo hal marna si uu iskula dhammaado kadib labadaani waxaad u sameynaysaa nested labadooda ayaad sidaan iskugu dooranaysaa kadib waxaa leedahay right click kadib waxaa leedahay nested kadib markaan waxaan u bixinaynaa button kadib okay aan iska dhahno sidoo kale marka kan asagana waxaan ku sameynaynaa duplicate kadib qaybta sare ayaan mid geenaynaa kadib midkan hoos xoogaa yar ayaan inta kasoo yara baxaynaa marka midkan sare ayaan waxaan gelinaynaa effectigii koraabka waa kana marka qaybtan aad iyo aad iskaga yara fiiri marka ugu horeyso marka ugu hore marka waxaan sameynaynaa qaybta iyo right-ka ayaa waxaan soo yara baxaynaa 93 markaan 93 aan usoo baxno mar allaale markaan qaybtaas aan soo dhaafin waxay tahay cropping-ka ayaa si qaldan u sameysmaya laakiin wadadani ayaa ku xalin doonaa insha allah ugu hore marka qaybtaasi iyo right-ka markaan ka yara dhigno 93 qaybta button-kana sidoo kale waxaan ka yara dhigaynaa 92 sababtay tahay qaybtan button-ka inuu sidaan ugu soo tirtirmo ayaa rabnaa
adig ilaa iyo 92 ayaan keensanaynaa. kadib keyframekiisa ayaan daaraynaa qaybta buttonka ma ahan qaybta right-ka. xoogaa yar playheadka wax yar kasoo yara bax, buttonka ebarkiisa kusoo yara celi. marka sidaan ayuu usoo sawirmayaa asagana. marka mar allaale markaad slow motion uu sameynayo waxaad sameysaa labada keyframe oo meeshaan kaaga soo bixi doono isku soo yara dhaweey kaliya. haddeertaa marka kani shaqadiisa qaybta sare aad iyo aad ayuu usoo gutay. marka waxaa yara dhaway midka hoose asagana isla asagana waxaad sameynaysaa koробka ayaa gelinaysaa. kan hoose ayaa haddeertaan ka yara shaqeynaynaa. kadib adiga waxaan leenahay midkaani effect control ka gal. kadib marka ugu horeysa iska fiiri waxaan noo dooran waa rectangle. buttonka rectangle-kiisa qaybta hoose ayaa noo dooran. button rectangle-ka midka hoose ayaa noo dooran, midka sare haddeertaan ayaan kasoo yara baxnay. mar allaale markaan doorto waxaad ku ogaanaysaa kani ayaa caddaan naqanayo. ugu hore marka waxaan sameynayna waxay tahay qaybtan iyo right-ka ayaa waxaan geenaynaa marka koowaad adigaas 92 uu joogay. waxaan leenahay 92. kadib keyframekiisa ayaan yara daaraynaa. kadib xoogaa yar ayaan soo yara baxaynaa. adiga waxaan keenaynaa ilaa iyo 8 oo kale. marka kani qaybtan kalena eedana sidoo kale motionkeeda sidaas ayaan ku gelinay. marka hakadka markuu sameynaya waxaan ku dhahay mar allaale midkan inaad usoo dhaweyso si ay balance ay iskugu naqdaan. xoogaa yar inta ayuu ku joogsanaya. kani buttonka ayaad soo jiidaysaa ilaa inta ayaad kaga keenaysaa. marka haddeertaan sidaad ugu jeedo xoogaa yar hakad ayaa ku jiro. midkaani keyframeka midka buttonka ayaad geeska ku yara dhejinaysaa. haddeertaan sidaad ugu jeedo kaliya marka waxaa sameeyey waxay tahay keyframekan ayaa xoogaa yar inta iga soo yari jiray. midkaani qaybta hoose iga jiri jiray. kaliya qaybta gadaal ayaad u celinaysaa. sidaa u jeedo marka balancegiisa sidan ayuu qaadanaya. marka hal mar ha isla bilaawdaan, hal marna ha isla dhamaadaan. kadib marka labadoodana hal mar ayaad waxaad u sameynaysaa grouping. waxaad leedahay right click kadibna waxaad kasii xulanaysaa nested. kadib marka waxaan leedahay button. haddeertaan sidaad ugu jeedo kani qaybta sare iska keensano, midkii hadaa oo toobka ahay qaybta hoose iska yara keensano oo ilaa intaan aan kusoo yara simno. haddeertaan markaan play aan dhahno sidaa u jeedo way yara bilaabanayaan. marka hadba markuu dhammaado sidaan ayay motionka u sameynayaan. marka haddii aad rabto labadooda inay isla bilaawdaan inay isla dhamaadaan kaliya waxaa isku hagaajisaa waxay tahay qaybta iyo keyframeska aad iyo aad iskugu yara habay. ugu hore markaad file sidan aad sameyso kaliya waxaad leedahay file kadibna waxaad kasii leedahay save as project ahaan ayaad u save garaynaysaa. mar walbo muuqaal oo square aad editing garaynayso aad u rabto in geedaan ay soo galaan kaliya waxaad leedahay open drag and drop it oo kale ayaad ku yara sameynaysaa. haddeertaan muuqaal tasta ayaan iska soo gelinayaa. xoogaa iska jirno control k qaybtan dhan uma baahni. labadan xabana isla ayaga xataa waxaad u sameyn kartaa nested. right click ayaan leenahay kadibna waxaan leenahay nested. haddeertaan marka sidaad ugu jeedo labadii xaba buttonka iyo qaybta iyo toobka hal xaba ayaan ka yara dhignay. marka faylashan waad adeegsan kartaa kaliya double click aad siinaysaa new tab ayuu kuu furayaa. mid walbana waad kusii dhufanaysaa haddii aad rabto inaad wax ka yara bedesho. marka kaliya muuqaalkeena ayaan qaybta hoose keensanaynaa. sidaad ugu jeedo haddeertaan haddaan muuqaalka aan play aan dhaho assalaamu calaykum waraxmat xoogaa yar muuqaalka cod ayuu yara wataa. aan u saaro marka inta badan farsamadani waxay aad iyo aad u caawin kartaa akhyaarta jecel kuna yara cusub qaybta iyo animationska. haddii aad tahay qof inta badan sameeya muuqaalada animationska waxaan aad iyo aad aan kula talin lahaa waxay tahay in aad mar badan aad fikirto si aad u soo saarto nashqado fara badan. runtii haddii aad aragto qof wax yara sameeyey kadibna markaasi aad ogaato waxaasi uu yara sameeyey isku yaraday in aad adiguna sameyso. haddii aad sameyso bal markaasi waxaad ku dabaqdaa fikirkaaga markaasi. macnaha waxaan ula jeedaa waxay tahay markii aad sheegii aad ogaatay sida loo sameeyey oo adigana aad sameysay waxaad ku fikirtaa nashqad midaasi u dhow oo kale laakiin ka duwan. mar walbo dadka animationska ah sidaasi ayaan ula talin lahay. haddii aad ka faa'iido muuqaalkan fadlan laagaree lana wadaagna asxaabtaada muuqaalkan si ayagana ugu yara faa'iidaystaan. haddii aad noogu yara cusub tahay nagu soo biir adigoo taabanaya calaamadda subscribe-ka
kadibna furanaya gambaleelka si ay kugu soo yar dhacaan muuqaal walbo aan soo gelino. waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. ugu dambeyntiina waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. waa inoo muuqaal kale. guuleysta. Bye.